waxaan maanta barnaamijkeena ku soo qaadaynaa madaxweynihii hore ee dalka Liibiya Muammar al-Gaddafi. Gaddafi waxa uu ku dhashay magaalada Sirta 1942 waxa uuna ka dhashay qoys aanan wax aqoon lahayn. Waqtigaasi dalka Liibiya waxa uu gacanta ugu jiray gumeystihii Talyaaniga ee markaasi uu hogaaminayay ninkii faashilista ahaa ee Benito Mussolini. aabihii dhalay Gaddafi ayaa waxaa mar xabsiga u taxabay gumeystihii Talyaaniga kadib markii uu ka mid noqday dhaqdhaqaaq lagu diidan yahay gumeystihii Talyaaniga. Gaddafi waxa uu raacay talaabadii uu aabihii ku taagnaa waxa uuna muujiyay sida uu jamhad u yahay. Mar ayaa laga eeriyay iskuulkii uu dhiganayay kadib markii lagu soo eedeeyay inuu ka dambeeyay mudaharaadyo xooggan ee ka dhacay magaalada sanadkii 1969 20 sano kadib markii ay qaadatay dalka Liibiya xornimada ayaa isaga iyo koox ka tirsan ciidamada dalka ay afgambi military kula wareegeen talada dalka aana wax dhiiga ku daadan. boqorkii dalka Liibiya ee boqor Idris waxa uu arrimo caafimaad uga maqnaa dalka Turkiga waxa uuna si tarxilahaan u joogay dalka Masar. Gaddafi si degdeg ayuu dunida caan uga noqday waxa uuna ku soo caanbaxay hadalladiisii adadka iyo isagoo faraha gashtay arrimo aan quseyn dalka Liibiya. sanadkii 1975 Gaddafi waxa uu shaaciyay buugiisii cagaarnaa waxa uuna halkaasi ka sheegay fikradiisa siyaasadeed ee dalka Liibiya. sidoo kale waxa uu hantida qaranka ku soo diray shirkado badan isagoo xoogga saaray dhisidda kaabayaasha dhaqaale ee dalka waxa uuna si aad u dhisay dalka Liibiya. Gaddafi waxa uu sheegay inuu talada dalka dib ugu celin doono dadka rayidka isaguna uu sii hayn doono xilkani. Gaddafi reer galbeedku waxa ay ku shabadeeyeen inuu yahay taliye qaab daran oo geystay dambiye ka dhan aadanaha. dalka Mareykanka ayaa sheegay in Liibiya ka dambeysay qaraxii ka dhacay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka. Mareykanka ayaa duqeeyay qasriga uu ka degnaa magaalada Tripoli Muammar al-Gaddafi weerarkaasina waa uu ka badbaaday. laakiin Gaddafi ayaa sheegay inay weerarkaasi uga dhinteen dhow asaga soo korsada. ismaandhaafkii ayaa sii socday waxaana isla sanadkii 1998 Gaddafi lagu eedeeyay in sirtoonkii dalka Liibiya ay qarxeen diyaaradii Pan America taasoo ku soo duldhacday dalka Scotland kadib markuu Mareykanka xukun ka tuuray Saddam Hussein 2003. Gaddafi waxa uu ku dhawaaqay inuu ka tanaasulay barnaamijkiisii hubka nukliyeerka. xukuumaddii Gaddafi waxa ay qirteen inay ka dambeeyeen qarxii loo geystay diyaaradii Pan America waxa ayna taasi beddelkeeda ku heleen in laga qaado cunaqabateyntii saarneed iyaga oo xiriir wanaagsan la sameeyay Mareykanka iyo dowladihii reer Yurub. sanadkii 2009 ayay ahayd markii ugu horeysay uu ka soo qayb galay Gaddafi fadhiga loo dhan yahay ee qaramada midoobay. halkaasina waxa uu ka jeediyay khudbad qaadatay 90 daqiiqo isagoona ku sifeeyay ururka qaramada midoobay inay yihiin urur argagixiso waxa uuna jarjaray xeerkii u yaalay qaramada midoobay. bishii Febraayo sanadkii 2011 waxa ka qarxay dalka Liibiya mudaharaadyo lagu soo horjeedo Gaddafi. inkastoo mudaharaadyadaasi ay socdeen 7 maalmood gudahood haddana waxay isku rogeen dagaaladaasina waxay horseedeen in mucaaradka koox ka tirsan ay qabsadaan magaalada caasimadda ee Tripoli. tan iyo markii laga soo saaray caasimadda Tripoli Muammar al-Gaddafi waxa uu si dhuumasho u joogay magaalada Sirta halkaas oo ay ka dhaceen dagaaladii ugu xumaa abid ee ka dhacay dalka Liibiya. 20 Oktoobar sanadkii 2011 ayaa ugu dambeyn la dilay Muammar al-Gaddafi isagoo baxsad ah oo ka baxsanayay mucaaradkii ku kacsanaa.